waa mar kale iyo barnaamijkeena galabnimo ee maanta dhacdooyin waaweyn oo ka taagan bariga dhexe iyo caalamka ayaanu barnaamijkan ku falanqayn doonaa oo waxaa ka mid ah wiilka uu sodoga u yahay madaxweyne Donald Trump oo dhowaan booqday Israel ayaa si qarsoodi ah waxa uu ula kulmay basaaskii weynaa ee reer Falastiin ee Yasir Abu Shabaab kaasoo Israel ay taageeraysay la dagaalamayay kooxda wax iska caabinta ee reer Falastiin ee Hamas maxay ka wada hadleen warbaahinta carabta oo aad u falanqeynaya arintaasi ayaanu eegi doonaa iyo aqalka cad ee dalka Mareykanka oo arintaasi war ka soo saaray waxaan kaloo barnaamijkan aynu ku eegi doonaa macluumaad dheeraad ah oo xagga sirdoonka iyo sidoo kale diblomaasiyadda ee ku aadan diyaaradii militariga dowladda wadanka Turkiga ee shalay ku soo dhacday wadanka Georgia ayaa hadda waxaa soo baxaya macluumaad sheegaya diyaaradaasi in aysan cilad qabin oo dabcan weerar ay la kulantay sidaasina diyaaradaasi ay u soo dhacday 20 qof ayaa saarnaa madaxweynaha dalka Turkiga Rajab Tayyip Erdogan arintaasi si adag oo carale ayuu uga hadlay baritaan ay bilaabeen sirdoonka wadanka Turkiga iyo sidoo kale militariga wadankaasi ilaa hadda macluumaadka la hayo ee ku saabsan diyaaradan ee soo dhicitaankeeda iyo cidii ku lug lahayd iyo sidoo kale dagaalka Israel iyo sidoo kale wadankan Turkiga hadii diyaaradaasi ay galaafatayna waynu eegi doonaa dhacdooyin kale oo ku saabsan xaaladda magaalada Gaza iyo bariga dhexe si guud waanu u eegi doonaa hadii aad nagu cusub tahay nagu soo bir dhacdooyinkan iyo kuwa kale oo ka taagan bariga dhexe iyo caalamka ayaanu barnaamijkan idinkugu haynaa marka hore waxaynu ku bilaabaynaa sida aad ogtihiin Israel waxa la shaqeynayay nin basaas ahaa oo Yasir Abu Shabaab magaciisu uu yahay kaasoo dabcan Falastiini ah laakiin Israel dabcan ka helayay hubka iyo dhaqaalahaas iyo hubkaasina waxa uu kula dagaalamayay kooxda reer Falastiin ee Hamas intii dagaalka Gaza uu ka socdayba ninkan Yasir Abu Shabaab oo dabcan maleeshiyad wata ayaa dagaalkaasi qayb ka ahaa ugu dambeyntii maadaama heshiis la gaaray Hamasna dabcan heshiiskaas ay saxiixday basaaskan iyo sidoo kale dadkii askartiisa ahaa ee maleeshiyadkiisa ahaa way baxsadeen oo dhinacan iyo Israel meelaha ay joogaan ayay dabcan ay u baxsadeen haddaba watii dhawaan ninka la yiraahdo Jared Kushner oo ah nin ganacsada ah isla markaana sodog uu yahay madaxweyne Donald Trump kana mid ah la taliyaasha sarsare ee Donald Trump ayaa waxa uu booqday Israel waxaa la soo wariyay marka in sodoga wiilkan uu yahay Erdogan inuu si qarsoodi ah oo ula kulmay ninkan la yiraahdo Yasir Abu Shabaab oo dabcan ah basaaskii Israel garabkeedii taagnaa oo shacabka reer Falastiin duqeynayay isla markaana kooxdii wax iska caabinta ee reer Falastiin dabcan la dagaalamayay haddaba halkee ayuu kulankaasi ka dhacay sideese warkan markii hore uu ku soo baxay warbaahin wadanka Sacuudiga fadhigeeda uu yahay oo la yiraahdo Saudi Al Hadath Network ayaa markii ugu horeysay warkan shaacisay in Yasir Abu Shabaab oo dabcan hogaaminayay maleeshiyadkii la dagaalamayay Hamas isla markaana garab siinayay Israel inuu si qarsoodi ah oo ula kulmay la taliyaha sare ee madaxweynaha dalka Mareykanka Jared Kushner ahna sodoga Trump kulankaasi waxa uu ka dhacay baa la yiri xarunta ciidamada dowladda wadanka Mareykanka ay ka sameysteen magaalada Gaza ee dabcan la socota xabad joojinta oo ku taala halka la yiraahdo Kiryat Gat halkaas buu kulanka uu ka dhacay baa la yiri ka hor kulanka waxa la sheegay in Israel ay ka shaqeysay sidii ay dabcan basaaskan weyn ee reer Falastiin iyo sidoo kale ergeygaasi ay u kulmi lahaayeen labada dhinac waxay ka wada hadleen baa la yiri sidii Abu Shabaab dabcan maleeshiyadkiisa ay door uga qaadan lahaayeen in kooxda reer Hamas meesha laga saaro oo dabcan gabi ahaanba laga durjiyo dhowr magaalo oo ay ka mid tahay halka loo yaqaano qadka jaalaha ah iyo magaalada Rafah oo xadka wadanka Masar marka Kushner wuxuu u sheegay in ay kooxdan maleeshiyadka iyo basaasiinta ah ay Israel iyo Mareykanka kala shaqeeyaan sidii Hamas looga saari lahaa meelahan hadda aan ka soo hadalnay haddaba kulankaas marka lagama qaadin baa la yiri wax sawir ah iyo sidoo kale wax macluumaad oo dheeraad ah sidaad ogtihiin maleeshiyadka uu hogaamiyay ee basaasiinta ah Abu Shabaab waxa la aasaasay 6 bilood ka hor dabcan waxayna ay ku sugnaayeen bariga magaalada Rafah dhulkan ay gacanta ku hayeen ciidamada militariga maamulka Israel
waxaa taageero kumana malaayiin dollar ah iyo qalab xoogan siinayay ama ka helayay ama ay ka helayeen dhinacan iyo sidoo kale ciidamada Israel maleeshiyaadkan dabcan Hamas bay la dagaalamayeen dhowr jeer xitaa maleeshiyaadkan waxay sameeyeen inay dhacaan gargaarkii magaalada la soo galiyay oo ay boobaan iyagoo dabcan iska dhigaya inay dabcan Hamas ka tirsan yihiin si sawir aan wanaagsaneyn ay uga bixiyaan arintaasi haddaba wararka waaweyn ee soo baxaya ee arintan ku saabsan ayaa mar qura waxay gilgileen guud ahaan bariga dhexe ee caalamka ugu dambeyntii war kooban oo hal sadar ah oo bogga Twitterka aqalka cad ee dalka Mareykanka lagu qoray waxay sheegeen in warkaas uu been yahay laakiin warbaahintii Sacuudiga iyo tii bariga dhexe ayaa intuba ka hadlaya in kulankaasi uu jiro isla markaana ninkaasi basaaska ah hadda loo dhiibay shaqo kale oo ku aadan in uu dabcan dagaal uu ku sii qaado reer Falastiin oo uu ka durjiyo halka qadka jaalaha ah laga sameeyay oo dabcan ah meesha ciidamada Israa'iil ay joogaan iyo marinka Rafah marka kulankaas baa soo baxay xaalad xun baa dabcan halka ka jirta isla markii waxa soo jawaabay reer Falastiin Hamas oo waxay yiraahdeen haddii kooxdan ay isku daydo inay sii dagaalanto oo ay timaado meelaha annaga aanu joogno waynu la dagaalamayna gacan bir ahna waynu ku qabanaynaa bay yiraahdeen xaaladdu halka bay maraysaa bal qaybta hoose nagula wadaag aragtidaada sidee baad u aragtaa basaaskaas reer Falastiin iyo maleeshiyaadkiisa oo dabcan la kulmay wiilka sodoga uu yahay Trump isla markaana hadda loo soo dhiibay shaqo kale oo cusub oo ah inay dabcan Hamas kula dagaalamaan si ay uga durjiyaan qadka jaalaha ah iyo marinka Rafah oo dabcan Masar iyo sidoo kale Gaza kala qaybiya bal arintaasi qaybta hoose nagula wadaag aragtidaada sidaad u aragto waanu ka gudbaynaa qaybaha kale ee barnaamijkeenu eegno shalay waa tii diyaarad xamuul ahayd oo ciidamada militariga ee dalka Turkiga ay leeyihiin oo dabcan saarnaa 20 qof inay ku soo dhacday xadka wadanka Jordan isla markaana diyaaradaasi dabcan ay ka soo duushay wadanka Azerbaijan khasaarahaasina dhowr ah ayaa ka dhashay madaxweynaha dalka Turkiga Recep Tayyip Erdogan oo khudbad jeedinayay shalay markii warka uu soo gaaray khudbadiisii waa uu joojiyay isagoo durba dabcan ka tacsiyay 20 kaasi qof ee diyaaradaasi dabcan soo dhacday haddaba warka ma ahan maanta warka shalay buu ahaa in diyaaradan ay soo dhacday warbaahinta aad bay uga hadashay maanta war cusub baa soo baxaya oo ku aadan in dad kamid ah kuwa wax falanqeeya ay sheegayaan diyaaradan in la soo riday oo dabcan aysan ahayn diyaaradan cilad mid ku timid maadaama muuqaalkii diyaaradan markii ay soo dhaceysay la arkay ay muujinayeen iyada oo hawada ku jirta inay burburtay oo ay dabcan qayb ay u kala dhaceysay marka taas waxay keentay in falanqeeyaashu ay yiraahdaan diyaaradaasi dabcan madaafiic ayaa lagu dhuftay sidaas ayaa loo soo riday walow ilaa hadda faahfaahin iyo sawiro rasmi ah oo madaafiicda ku dhacday diyaaradaasi aanu la soo bandhigin laakiin waxa la leeyahay marka la fiiriyo diyaaradu hadii cilad dabcan ay ku timaado iyada oo hawada ku jirta si caadi ah ay u soo dhacaysa iyada oo is wadata laakiin diyaaradan muuqaalkeeda waxaa ka muuqday dabcan inay kala go'go'day oo iyada oo dabcan jabjab ah ay dhulka ay ku soo dhacday marka arintaas marka waxay keentay in la isweydiiyo dabcan in diyaaradan madaafiic banaanka uga yimid dabcan ay ku dhacday haddaba arintan Erdogan iyo dawladiisu waxay yiraahdeen baaritaan degdeg ah ayaa hadda socda oo waxa la ogaanayaa bal diyaaradan haddii la weeraray waana diyaarada military dabcan ma ahan diyaarad rayda marka taas waxay keentay in dadku ay yiraahdaan diyaaradu dabcan madaafiic banaanka ka yimid ayaa ku dhacay oo sidaas bay u soo dhacday sirdoonka wadanka Turkiga ayaa la leeyahay hadda waxay bilaabeen baaritaankaasi waxa la leeyahay baaritaankan sida ugu dhaqsiyaha badan ayaa loo soo gabagabeyn doonaa waxana uu ku soo aadayaa diyaaradan inay soo dhacday ama ay ku soo aadaysaa xilli Israa'iil iyo sidoo kale Turkiga dagaalkooda xagga diblomaasiyadda meel adag u marayo la iskuna hayo in ciidamo Turki ah ay gudaha magaalada Gaza soo galaan iyo in kale marka xaalad adag baa ka taagan daawada adigu maxay kula tahay diyaaradaasi ma waxay kula tahay in la soo riday oo madaafiic banaanka ay ugu timid ay dabcan ay ku dhacday mise arintan la sheegayo ah inay cilad dabcan ay ku timid ayaa dabcan diyaaradu ay u soo dhacday caadiyana diyaarada waaweyn sida tan shalay soo dhacday C-130 la yiraahdo diyaaraduhu dabcan waa diyaarado cusub ah dabcan wax degdega ama cilado degdega markay timaado aad bay isu xalin kartaa inay degtana dabcan wax weyn kuma ahan laakiin arintaasi ah in diyaaradda madaafiic lagu dhuftay ayaa aad u soo xoogaysanaysa bal qaybta hoose nagula wadaag aragtidaada siday kula tahay aad iyo aad baad u mahadsan tahay hayloobin inaad nagu soo biirto oo aad subscribe inoo saarto channelkan mahadsanidin meel kastoo aad joogtaan